waa maxay sababta khaayinka filimka ama villainka filimka uu uga labis qurxoon yahay markasta aktarka? waxaa jirta sir badan oo aanan ogeyn oo ku hoos jirta tan. waa mootino oo ka hadla lifestyle-ka. soo dhawaada. qodobka koowaad, labisku waa qayb ka mid ah shakhsiyadda. khaayinka filimka ama villainka filimka waxaa lagu sameeyaa doorka ah in uu saameyn ku yeesho filimka. dharka ay xidhaana keliya maaha labis ee waa extension ka mid ah shakhsiyadooda ay filimkaas ay ku soo bandhigayaan. tusaale ahaan Phoenix oo matelay Joker, Tom oo matelay filimkii Loki, labiskooda waxaa loo dooray in ay noqdaan kuwo xasuus leh oo sidoo kale khatar muujinaya. marka dareemso Joker-ka labiska gaarka ay akhtarka ku jiro iyo marka uu qoslayo expression-ka uu sameynayo, dressing-kiisa marka uu soo galayo, yacni waxaa dareemaysaa awood uu leeyahay iyo sidoo kale sawirka guud ee uu bixinayo. hadhkooda ka dambeeya badanka waxaa laga dhigaa mid sharp ah. texture-ka dharkooda ama maxaa la yidhaahdaa duntooduna waa mid jaan go'an iyo weliba sidoo kale baataranka labiska ay xidhanayaan. halka aktarada kale ee sida Chris Evans iyo Tom Holland oo kale badanka ay iska raacaan trendiska labisyada ama garamaanteere iska normalka ah iyo labisyada iska normalka ah ay xidhaan. qodobka labaad, consistency iyo soo kale signature look. in markasta la garto iyo soo kale in muuqaal guud ay yeeshaan. koodharka dhaadheer ee ay xidhaan, soo kale layerska kala duwan ee ay xidhanayaan, soo kale baatranka saa u dejisan, texture-ka iyo soo kale trade-ka ay ka samaysan yihiin, soo kale labisyada si ay isku qaadanayaan. waxaa dareemaysaa muuqaalka ay bixinayaan iyaga oo aan hadlin in ay sawir bixinayaan dharkaasi. qodobka saddexaad, accessories iyo soo kale detailed focus. khaa'imiintu ma aha keliya kuwa iska doortaa dharka ay xidhanayaan iyo accessorieska ay xidhanayaan zero symbol. micnaa ku jira mid kasta iyo fargal. xitaa haddii fargal ay xidhanayaan mostly waxaad arki kartaa hal fargal oo xidho ama hal silsilad oo xidho in aad dareemi karayso baataranka ku dhex jiraaba inuu yahayba ujeedadii filimka. waxaad dareemaysaa ninka la dhahdo aktarka Michael B. Jordan filimka uu ka ciyaaray doorka Killmonger. filimkaasoo kale waxaad dareemaysaa detailed weliba focuska la saaray iyo soo kale accessories choice-ka loo dooray iyo saa iskugu soo baxayaan. qodobka afraad, maxay khaayimiinta villainsku markasta ay u doortaan dharka madow? ujeedda ku hoos jirta midabada aura iyo soo kale maxaa burjigaaga awoodiisa kor u qaadaya. waxaa ka mid ah midabka madow, dark blue oo kale, maroon color-ka la dhaho kale iyo soo kale gaar ahaan casaanka. midabadani waa kuwa muujinaya awood, aggression iyo soo kale control oo waxa ay qaabeynayaan wax kasta oo ay ku jiraan. waxaa dareemi kartaa Kingpin iyo soo kale Joker labisyada ay xidhanayaan casaanka iyo midowga ku jiro kale. waxaa dareemaysaa waxa ay muujinayaan inay awood tahay. haddaba fahamka layerska iyo soo kale baataranka colorska ayaa ka dhigaya iyo soo kale qaab dhismeedka loo tolayo dharka ayaa ka dhigaya qofkan inuu noqdo qof u eeg in uu yahay villain ama khaayinkii filimka, kaas oo siinaya awood dheeri ah inta lagu talagalay marka aktarka loo eego. so markaas dominance-ka waa uu ka weyn yahay villain-ku dhanka aktarka. haddii aad tahay shirkadaha filimada sameeya, aniga oo Cabdifatax Mootina iyo tiimkaygu waxaan ku diyaarnahay in aan ka caawino characteriska filmaantada matalaya in aan ka saxno labiska, walibana labiska ku haboon aan u doorno. boqobsadka kadib ka soo door qaybta Star Cultural Consulting dabasho filimka tikare foomka buuxi. waxaan ku daarnay labis dhameystiran oo dhammaan characteriska filimka ka qayb qaadanaya ku soo baxaya. bal adiguna la wadaag sababta khaayimiintu ay ugu duwan yihiin actress-ka waa maxay?